maxadka cilmi baadhista bulshada iyo horumarinta magaciisa loo soo gaabiyo soo raadi ayaa maanta magaalada Hargeysa ku qabtay shirweyne ku saabsan isla xisaabtanka dawladaha hoose iyo horumarintooda waxaana kulankaasi ka qayb galay xildhibaano ka tirsan aqalka golaha wakiilada Soomaaliland qaar kamida maayiradii hore ee dalka iyo mas'uuliyiin kale waxaana kulankaasi lagu gorfeeyay sidii loo heli lahaa isla xisaabtan dhexmara mas'uuliyiinta dawladaha hoose iyo shacabka u adeegaan خضر عثمان فضل وأقسم كحجينك محد كسور هذه أيه ففايد دلوع كلان كان شركة نشوفنا وحاو دارين هاي وحاو كميدي هاي حول أنو كودنا الدولة ده هوسه أول جهة ليو إصلاح حسابتك سيدي لو هلي لا مضح له حسابتهم ودكتينو مضح ذهنا لما حسابتنا وحنو هاي سنة إن يهين نمان أينان هرب يستاجي كرين ما حويدين كرين وحموقة أنت بدن إن أين البابدو أي نجح دان oo aynaan isbaba qaabilin marka sidii bulshadana looga dhaadhicin lahaa inay yihiin dad iyaga u shaqeynaya oo la xisaabtamayo madaxdana loo sheegi lahaa in ma garanaysaa ay u fidiyaan Google ay kula xisaabtami karaan dadweynuhu marka conference-kani waxa uu daaran yahay dadkii ama shirweynahani dadkii ka shaqeynaya arrimahaas oo dhan baan iskugu yeedhnay oo ay ka mid yihiin baarlamaankii khaasatan gundidii ilaalinta hantida qaranka mashaariicda JPLG-ga hay'adihii ka shaqeynayay dawladda hoose lafteedii oo halkan waxa fadhiya agaasimayaashii agaasimaha arrimaha bulshada agaasimaha hore qorsheynta maayirka waan u yeedhnay waan u casuunay departmentska ay khusayso shaqadan oo dhan waan u yeedhnay waxa kale oo u yeedhnay hay'adkii ka shaqeynayay waxaan u yeedhnay oo kala qolooyinkii World Bank ee iyaguna dawladda hoose caawinayay waxa la iskugu yimi waxa in wax la iska weydiiyo sidee loo abuuri karaa dawladda hoose oo leh jawi isla xisaabtan shirku intaas u daaray Mukhtaar Mursal xiin oo kamid ah wariyaasha telefishinka Home Cable ayaa weydiiyay rajada ay ka qabaan in la helo mas'uuliyiin iyo shacab isla xisaabtama run ahaantii waqti bay qaadanaysaa inta ay aqbalayaan in laga dhaadhicinayo sababtoo ah wax badan baa soo khaldamay cilado badan oo qariyaan bay leeyihiin soo arkaysaa maayirka saako in casuunay muu imanin haddii wax badan ay hagaagsan yihiin runtii intuu yimaado ayuu difaaci lahaa wax hagaagsan laakiin runtii ma iman maayirkii dad badan oo kale oo isla xisaabtanka ka cararayaana way jiraan marka waxaan aaminsanahay muddo qaadanaysa waa processun imika bilaabmay laakiin haddaynu hagaajino nidaamka ay ku yimaadaan nimanka madaxda ay ku yimaadaan positionka waa bilowga baadeeda marka hore hadii marka la keenayo nimankaasi ama xildhibaanadaasi inaan lagu soo dooran wax reera oo lagu soo doorto aqoon iyo karti iyo taa waxa soo saaray cilmi baadhistaanu sanad ka shaqeynay baa tustay ciladuba halkii ka soo bilaabantaa inay tahay doorashada صالحان دورشدا waxay noo fadhiyay 25 xildhibaan caasimadda Hargeysa golaha deegaanka Hargeysa 25 ka xildhibaan hadii heerkooda aqooneed la eego oo la eego hawlkarnimadooda oo la eego awoodaha ay haystaan oo la eego siday wax u maamulaan waxaad arkaysaa in gaabis badan ay jiro Xasan Galadon Cable TV Hargeysa